Assalaamu calaykum saaxiibayaal kulanti wacan oo wanaagsan ku soo dhawaada qaybtii 13aad ee sheekooyinkii qosolka badnaa ee kaftankii Bisle ama Bisle Jokes. Sheekada maanta ugu horeysa waa Keenna ma koreeya. Nin oday ah baa wuxuu qurbaha ku arkay laba wiil oo gacmaha is haysta sidii dumarkana u laafiyoonaya. Wuxuu yiri kuwan maxay ahaayeen? Waxaa lagu yiri adeer waa khaniisiin oo waa ay isqabaan. Markaasuu yiri malaha Soomaali ma aha. waxaa lagu yiri Soomaali dheer iska dhaafe midna waa in hebel midna waa in hebel. Labada wiilba wuu gartay. Mid waxaa dhalay inay isku qabiil yihiin, midka kalena waxaa dhalay oday qabiil kale ah. Markaas buu yiri waayahay Keenna ma koreeya. Sheekadaas qosol kaliya ma ahan, waxay xitaa muujinaysaa halka qabyaaladdu inaga marayso in khaniisiin la kala xigsado. Sheekada xigta bartii baa lagu dilay. dagaalkii 1977 Soomaaliya iyo Itoobiya markii laga soo laabtay intii aan ciidamada lagu kala celin xiriyahoodii baa islaan walba ninkeedii baadi goobtay oo mid walba tagtay xiradii u dhaweyd. dhowr islaan oo nimankoodii maqan yihiin xogna laga haynin baa waxay wareysteen in xoogaa xabadii iyo madaafiicdii ku soo khafifay. qof kasta oo ay weydiiyaan war hebel ka waran wuxuu dhahaa bartii baa lagu dilay. islaam baa istiri intuu ku dhihi lahaa ninkaadii bartii baa lagu dilay ha weydiine iska dhaaf. islaamii wax weydiinayay bay ku tiri waryaada naga wada ninkan wuu waalan yahay. markaas buu yiri ninkan waalan iyo midkaad ii weydiin rabtid labadaba bartii baa lagu dilay. sheekada xigta waa ku ooyin karaa. qoraagu wuxuu leeyahay mid saaxiibkay ah oo tima cadal yiraahdo baa wuxuu yiri dalka Shiinaha waxaa laga furay maqaayad ay ku ooyaan dadka murugada hayso. waxaa la weydiiyay weligaa ma tagtay Shiinaha iyo maqaayadaas mise waa lagu sheegay? wuxuu yiri waan tagay oo xitaa waan galay maqaayada. waxaa la weydiiyay af Shiinees ma ku hadli kartaa? kulaha maya laakiin waan ku ooyin karaa. sheekada xigta ha loo dhuubo ma taqaaniin miya. gabar baa waxaa guursaday nin 3 lugood ah. markaas bay habeenkii wax u kala socon waayeen. subaxdii baa islaamo ku soo dheelmadeen. waxay u sheegtay meeshan waxaan jilib ka yareen inay yaalaan. intay la carareen bay 4 qodob fagsiyeen. haddana subaxdii kale bay ku soo dheelmadeen. waxay tiri weli waa sideedii. way la carareen 4 kale bay fagsiyeen. subaxdii kale bay ku soo dheelmadeen. way ku celisay in weli fooda xitaa gelin. intay la carareen bay ilaa caloosha faqaaqa ka dhigeen. subaxdii afraad bay haddana u yimaadeen. way u sheegtay xaaladda inaysan waxba iska bedelin. markaas bay sidooday dhaheen soo baxa waa la soo weyneynay. intay xanaaqday bay tiri horta adinka hala duleeliyo iyo hala weyneeyo ma ahee ma taqaaniin miya asaga ha loo dhuubo ama ha loo yareeyo. sheekada xigta haddaan wax qori aqaan. gabar qaad iibinaysa baa waxaa u yimid nin deyn rabo oo aan lacag wadan. siduu qaadka midba mar u fiirinayay oo u lahaa kan iga bedel ee mid kale i tus buu mid uu ku qanac la baxay. markaas buu haddana gorgortan iyo waa badan tahay wakhtiga uga qaaday. ugu dambayn markii ay qiimaha ku heshiyeen buu intuu taqfasha gashaday yiri walaal igu qor. markaas bay tiri haddaan wax qori aqaan qaad ma iibiyeen. sheekada xigta naag tuur leh iyo ninkeeda. wiil ciyaalka xaafadda ah baa wuxuu guursaday naag tuur leh. markii uu guri geystay naagta bar uu dhiga buu garan waayay. maalintii dambe buu saaxiibadiis la tashaday. wuxuu naagta waa ku wareeray. dhinac kasta oo aan u jeediyo waa kala koraysaa sideen wax yeelaa. mid saaxiibkiisa baa yiri saaxiib guri bacaad ah deg ee god intaad u qodo tuurta u gelay ayadaa isla ekaanayse. sheekada xigta maandhow. oday riixi qaba baa asagoo jiifo meel jidka dhinaceeda ah waxaa ku istaagay gaari xamuul ah oo fariinka soo goostay. wuxuu mooday wiil uu u yahay oo ku istaagayo. markaas buu yiri maandhow ilaa madaxa soo wad. sheekada xigta asaga iyo dibiga iyo aniga. oday baa waxaa u timid gabar dacwo ka ah wiil uu dhalay. waxay ku tiri adeer wiilkaada naaska buu iga taabtay iga celi. odayga kulaha dibigaas geesaha weyn iyo wiilkay iyo anigaba qooq baan farta kala xirannahay haddii naas lagugu sime waad caymataa. saaxiibayaal intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijkeena maanta. intaan barnaamij lamida ku kulmi doono waa saaxiibkiin Faarax Fawzi oo idinkaga tagaya sidaas iyo amaana Allah.